maanta waxay ii rumowday waxaan iminka wareejinayaa 236 qof oo aan ku wareejinayaa isbitaalka Maandheeye. Anagoo barac volunteers waxaan guddoonsiinaynaa. Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Ruqayya Maxamuud loo garan ogyahay Shankaroon. Waxaan muddo 10 sano ku dhow aan ka shaqeynay u shaqeynay dadka maanka xanuunsan, dadkii la ilaaway, dadka aan lahayn codkooda aanu meel gaadhaynin. Waxaan u shaqeeyay ku dhowaad ilaa 500 oo qof aan u shaqeeyay, 200 oo qof ay caafimaad qabaan maanta ay magaalada baash kaga jiraan shaqaystaan. 300 iyagoo weli aan caafimaadkooda aan tamaam noqon iyaguna magaalada baal kaga jiraan la fasaxay. Waxaan iminka wareejinayaa 236 qof oo aan ku wareejinayaa isbitaalka Maandheeye. Maanta waxay ii rumowday riyo in badan igu haysay fikir iyo werwer iyo walbahaar igu haysay. Maanta waa maalintii labaad ee loo shaqeynay dadkii aan gacanta ku hayay 230 ka ahayd. Waxaanan aad iyo aad uga mahadcelinayaa qolada Maandheeye oo igala wareegay ugu horreeyay agaasimaha isbitaalka Maandheeye iyo dhammaan bahda shaqaalaha ka shaqeeya Maandheeye si qurux badan ii soo dhaweeyay. maanta oo ay bishu tahay 17 May waxaa cisbitaalkan ugu soo booqatay Ruqayya iyo tiimkeeda oo runtii in badan ka soo shaqeynaysay ama u shaqeynaysay bukaanada la nool xanuunada ku dhaca maanka. Ruqayya waxa ay halkan keentay beeshino kala duwan oo la doonayay in lagu adeego cisbitaalka maanka. Annaguna waanu ka guddoonnay waana la shaqeynaynaa insha Allah bidnillaahi kariim. Dadka xanuunsanaya waxay u baahan yihiin in dareenkooda iyo xanuunadooda lala socdo, wadadaan hadli karin, wadadaan waxba sheegan karin, wadadaan iman karin goobaha caafimaadka. Markaa waanu ka guddoonnay waanaan u shaqeynaynaa cisbitaalka maankuna wuxuu u shaqeynayaa ama uu furay inuu adeego bukaanada la nool xanuunada ku dhaca maanka. Raaqiyo waan ugu hambaleynayaa shaqadan ay hayso oo dhalinyaro shaqo dad bulshadu inay qabato u baahnayd iyo dawladdu bay qabatay. Waan kuugu hambaleynayaa wax kale shaqo wanaagsan baad haysaa. Dadkaaga kuwa aan hadli karin ee fariimahooda soo gudbin karin baad garab taagantahay. Waan kuugu hambaleynayaa Sharafta qofku markuu ummadda u adeego si hagar la'aan oo mutadawacnimo ah waxa ugu yara la yiraahdaa waxa weeyaan waa mahadsantahay. Halka anagoo barac volunteers waxaan guddoonsiinaynaa Raaqiya shahaado sharaf aanu u garanay inay ku mutaysatay garab istaagga ay dadka walaalaheeda garab istaagtay. waxaan ii sharafay inuu qayb igala yahay agaasimaha isbitaalka. Raaqiya waxa ku leenahay waa mahadsantahay. Hayo adaa mudan.